kulan wanaagsan daawade halkan waa madasha wararka ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon hay'adaha ammaanka Muqdisho oo saacadihii la soo dhaafay heegan la geliyay dawladda oo casharadii ay ka dhigtay Jubbaland mid lamida looga dhigay Galmudug al-shabaab oo amar dul dhigtay beelo dagaalkooda la xallin waayay sanado badan afar qodob oo cadeynaya in ra'iisul wasaare Khayre aysan dhab ka ahayn hakinta mashruuci muranka badan dhaliyay iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay ujeedka laga leeyahay mashruuci uu hakiyay ra'iisul wasaare Khayre waa 20ka bisha koowaad January sanada 2020 qodobada aad daawateen oo dhameystiran ku soo dhawaada haddii aynu ku bilowno hay'adaha ammaanka Muqdisho ayaa saacadihii la soo dhaafay heegan la geliyay waxa aad loo adkeeyay ammaanka xarumaha safaaradaha Turkiga iyo sidoo kale Imaaraadka ee ku yaala xeebta Lido ammaanka duleedka Muqdisho iyo sidoo kale nawaaxiga madaxtooyada Soomaaliya kadib markii la sheegay in la helay xog sheegaysa in al-shabaab ay qorsheynayaan weeraro xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in hay'adaha ammaanka lagu wargeliyay in magaalada Muqdisho ay suuragal tahay inay ka dhacaan weeraro ay geysan karaan al-shabaab oo loo adeegsanayo gaadiid iyo sidoo kale waxyaabo la mid ah waxaana arintaa ay sababtay in ammaanka Muqdisho la adkeeyo goobaha aan soo sheegnay oo aan markii hore baaritaan mari jirin sidoo kale waxaa la keenay ciidan iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo hareeraha laamiga safan kuwaas oo la sheegay in ay qayb ka qaadanayaan ammaanka magaalada Muqdisho lama sheegin nooca gaariga iyo sidoo kale tirada ee dadka weerarada geysan kara laakiin waxaa la sheegay in gaarigaas iyo sidoo kale ragga saaranba ay ku sugan yihiin gudaha Muqdisho adkeynta ammaanka magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha aan kor ku soo xusnay ayaa sidaan oo kale u adkaa wixii ka dambeeyay weerarkii Sabtidii ka dhacay wadada Afgooye sirdoonka Turkiga ayaa sheegay in al-shabaab ay doonayaan in xarumahaas ay weeraraan oo ay ugu horeyso safaaradda Turkiga iyo sidoo kale dekedda Muqdisho oo ay maamulaan Turkiga al-shabaab ayaa Sabtidii weerartay kolonyo Turki ah oo ku sugnaa meel ku dhow degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh dawladda ayaa cashirkii ay ka dhigtay Jubbaland mid lamid ah looga dhigay maamulka Galmudug xalay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka Galmudug gaar ahaan madaxweynaha maamulkaasi xafiiskiisa ayaa loogaga dhawaaqay 63 xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada Galmudug gaar ahaan garabka uu hogaaminayo madaxweyne Xaaf dhinaca kale waxaa jira yana dadaalo dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wado magaalada Dhuusamareebkaas oo ku aadan in la dhiso dawlad goboleedka Galmudug oo muddooyinkii u dambeeyay murankiisa uu taagnaa madaxweyne Xaaf ayaa sheegay in la dhameystiri doono xubnaha ka dhiman kuwaas oo tir ahaan gaari doona 83 xildhibaan oo dhammaanba matalaya sida uu sheegay beelaha degan guud ahaanba deegaanada Galmudug waxa uu tilmaamay in aanay hakin doonin horusocodkooda iyo sidoo kale dhismaha dawlad goboleedka Galmudug afar qodob ayaa cadeynaya in ra'iisul wasaare Khayre aysan dhab ka ahayn hakinta mashruuci muranka badan dhaliyay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo hogaamiye xisbiga Wadajir ayaa sheegay in maran habaamin iyo sidoo kale been abuur ay tahay amar ka soo baxay ra'iisul wasaare Khayre oo uu sheegay in uu joojiyay mashruuci bangiga adduunka ee horumarinta Muqdisho Kismaayo Garowe iyo sidoo kale Baydhabo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa soo bandhigay afar qodob oo cadeyn u ah in xukuumadda aysan daacad ka ahayn talaabada ay qaaday laguna talagalay in lagu aamusiyo shacabka Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle oo laga qadiyay mashruucaasi xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay joojisay hirgelinta mashruuca banka adduunka uu ku dhisayo kaabayaasha dawlad goboleedyada iyo sidoo kale gobolka Banaadir laakiin banka adduunka bogiisa internetka ayuu ku baahiyay 9kii bishii December sanadii 2019 kuna shaaciyay mashruuca iyo sida loo fulinayo hadalka ka soo yeeray xukuumadda waa mid maran habaabina dawlad waxa ay wadaa dheeldheel sida uu sheegay dan qaranna halka kama wado deegaanada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug ayuu qoraal ka soo baxay ku sheegay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qodobada uu tiigsanayo waxaa ka mid ah 1 Baydhabo Banaadir Garowe Kismaayo waa magaalooyin Soomaaliyeed wax eedna kuma lahan in Jowhar iyo Dhuusamareeb ay ka mid ahaan waayaan magaalooyinka mashruucan laga hirgelinayo eedase waxaa leh dawladda federaalka Soomaaliya oo mashruuca maamuleysay waa mas'uuliyad darro aqoon darri
dhanka dowladnimada iyo sidoo kale aqoon la-aanta guud in la yiraahdo mashruucii waa la joojiyey ee waxa ahayd in la sheego sababta Jowhar iyo Dhuusamareeb looga reebay mashruuca iyo in dowladdu ay ballan qaado in ay ku soo darto mashruuca maadaama iyadu ay maamulayso ayuu ku yiri qoraal ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. 2 dowladda federaalka ah bilow ilaa iyo dhammaad waxay la socotay ilaa iyo shalay oo wasiirku maaliyadda saxiixay mashruucan sawgaraadkeena laguma xadgudbayo maahan in la yiraahdo shalay ayuu ra'iisul wasaaruhu baraarugay in Jowhar iyo Dhuusamareeb ay ka maqan yihiin mise dalku ayuu ka maqnaa mise waxa uu ku biiray naadiga waxba kama oga ee madaxweynaha ayuu ku yiri qoraal ka soo baxay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. 3 waa ay caddahay in hadalka xukuumadda loogu talagalay warbaahinta in lagu moodo maalmaha ay doorashadu galmudug socoto maadaama mashruuca dowladdu ay arrinkan ay dhaawacayso ra'iisul wasaaraha oo galmudug iyo Hirshabeelle qabiil ahaan 4.5 ku matala. haddii ra'iisul wasaaraha soo dhibcinayo xaq ka maqan labada maamul gobol waxay ahayd in uu soo dhiciyo isaga oo aan kuwan xaqooda duudsan. ficilka hoggaanka dowladdu waxay ka turjumaysaa ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame inta ay la eg tahay aqoonta fahamka iyo waxgaradnimada ay dowladdu u leedahay. dhinaca kale waxa uu muujinayaa sida ay uga maran yihiin damiir dadnimo iyo sidoo kale mas'uuliyad dowladnimo maadaama ay olole siyaasadeed u isticmaalayaan mashaariic horumarineed oo ay dowlad ajaanib ah ugu deeqday Soomaaliya iyagoo kala irdheynaya shacabka Soomaaliyeed ayuu ku yiri qoraal ka soo baxay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. markana xaaladda magaalada Marka ee Shabeellada Hoose ayaa lagu soo waramayaa inay degan tahay. Al-Shabaab ayaa fariisimayaal ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin afaafka hore ee magaalada Marka laga soo galo weerar xalay ku soo qaaday iyadoo labada dhinacna dagaal xoogan halka uu ku dhex maray. maamulka magaalada Marka gaar ahaan xogayaha degmadaasi Maxamed Cismaan Cali Yariisow oo aan la hadalnay ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi wax khasaare aanu dhalin balse labada dhinacba rasaas ay isweydaarsadeen balse ugu dambeyntii ay Al-Shabaab meelihii ay ka soo weerar tageen dib mar kale ay ugu noqdeen. xaaladda ayaa hadda lagu soo waramayaa inay degan tahay oo wax dagaal ah halka ay ka jirin. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay ka sameeyeen gudaha magaalada Marka ee Shabeellada Hoose iyadoo maamulku uu sheegayo in ujeedka kaliya ay tahay xaqiijinta amniga. Al-Shabaab ayaa amar dul dhigtay beelo dagaalkooda la xallin waayay oo sanado badan taagnaa. waxaa si rasmi ah u dhaqangalay amar ka soo baxay dagaalyahanada Al-Shabaab kaas oo ku wajahanaa dagaal maleeshiya beeleed ku dhex maray ee ka socday deegaanka Buurdheere oo ka tirsan degmada Cadalle. dagaalkan oo kii ugu dambeeyay ka dhacay bishii Maarso sanadkii hore ayaa tan iyo wixii xilliga ka dambeeyay waxaa jiray Al-Shabaab oo 2 jeer kulmisay odayaasha dhaqanka ee labada beel. sida ay qaar ka mid ah odayaashu sheegayaan ayaa Al-Shabaab waxay ku amartay inay joojiyaan dagaalka iyo dilka intaba ciddii amarka u hoggaansami weysana ay tilaabo cad ka qaadi doonaan. sidoo kale Al-Shabaab ayaa u sheegtay odayaasha in ay u soo gudbiyaan khasaaraha kala gaaray kadib sida lagu xallin karana go'aankeeda Al-Shabaab qaadan doonaan. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in kaliya xogta khasaaraha aysan soo gudbin doonin dhinacyadii dagaalamay balse dhankooda ay baari doonaan. Al-Shabaab ayaa sheegtay in muddo sanad ah lagu dhammayn doono muranka deegaanka isla markaana ay Al-Shabaab samayn doonto soodin dhuleed oo labada dhinac ay isku haystaan. labada beel ayaa u hoggaansamay amarka Al-Shabaab waxaana hadda si nabad ah ay ugu wada nool yihiin goobihii lagu dagaalamay laakiin waxaa mamnuuc ah isticmaalka waxyaabihii dagaalka dhaliyay markii hore. dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Hirshabeelle ayaa horay ugu guul dareystay in ay xaliyaan dagaalkan oo muddo dheer jiray kaas oo sababay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac. guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo koobaynaa warkii aad kala socoteen madasha warkan warka xiga nabadgelyo.